subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabay, magacaygu waa Raxmo. asxaabay, maanta waxaan idiin wadaa sheekada walaashay Xamdi, balse intaan sheekada bilaabin waxaan idin xasuusinayaa inaad muuqaalka like saartaan, sidoo kalena channelka subscribe saartaan. mahadsanidin. asxaabay, sheekadeena waxay ku bilaabanaysaa walaashay Xamdi waxay iga weyneyd 5 sano. qisada walaashayna waxay bilaabatay markii ay jirtay 16 sano. qof kasta oo arka Xamdi wuxuu dhihi jiray waa gabar aad u qurux badan. Xamdina waxay had iyo jeer iyadu jecleed inay muraayad isku fiiriso, marka ay seexanayso kama aysan tagi jirin inay muraayad isku fiiriso. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ku kacay qaylada walaashay Xamdi. hooyaday ayaana soo aaday dhankii Xamdi. Xamdi, ma fiican tahay? maxaa kugu dhacay oo aad la qaylinaysaa? hooyo, waxaan arkay nin aanan garanayn oo kasoo dhex baxay muraayadda. wejigiisuna wuxuu ahaa mid cabsi ah, sidoo kale ninku wuxuu ahaa mid gaaban, gacantiisana wuxuu ku hayay dhagax weyn. aniguna markaan arkay waxaan bilaabay qaylo aad u dheer. intaas kadib habeen kasta waxaan ku toosi jirnay qaylada walaasheen Xamdi. ugu dambeyn waa la qabsanay qayladeeda, iyaduna sidoo kale way la qabsatay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabahay qolka soo galay isagoo leh, Xamdi wiil wanaagsan ayaa ku soo doontay oo raba inuu ku guursado, sidoo kale wuxuu leeyahay lacag, wuxuuna ka shaqeeyaa shaqo fiican. maxaad ka qabtaa haddii aan kugu daro oo uu ku guursado wiilkaas? waan fiirinaya aabe, laakiin haddii aad aragtay inuu yahay wiil wanaagsan maxaad iigu dari weyday waqti hore? gabadheedii raali noqo, waan balansanayaa, waxaana rajeynayaa inuu ii yimaado oo ila hadlo. kadibna aabbahay wuu baxay, aniguna waxaan habsiiyey Xamdi anigoo leh, hambaliya walaashay, ma rumaysan karo inaad hadda lagu guursanayo. maalintii xigtay waxaa xaafadda yimaaday wiilkii Xamdi soo doontay, wuxuuna la hadlay aabbahay oo weydiistay inuu siiyo Xamdi. kadibna Xamdi iyo ninkii soo doontay ayaa si khaas u wada hadlay, annaguna waan ka tagnay. daqiiqado yar kadib waxaan maqalnay qaylada wiilkii soo doontay Xamdi isagoo leh, war iga qabta gabadhan, iga badbaadiya. kadibna isagoo ordaya oo argagaxsan ayuu guriga ka baxay. Xamdina waxay ku dhacday dhulka wayna suuxday. saacado badan kadib Xamdi way soo toostay. maxaa kugu dhacay Xamdi? maxaase uu la qaylinayay wiilkii soo doontay? kadibna wuu la cararay. maxaase kugu dhacay adiga? jawaabtii Xamdi ay bixisay waxay ahayd mid aad u argagax badan, waxayna tiraahday, nin miyaa isoo doontay aabe? anigu ma xasuusto waxba. maxaa dhacay aabe? madaxa ayaa i xanuunayay. kadibna waxaan ka soo baxnay qolkii Xamdi annagoo aamusan, qof naga mid ahna muusan oran hal eray. aabbahay ayaana hooyadii ku yidhi, Xamdi taran yaraanteedii xanuun noocan oo kale ugu hayay, aad ayaynu usoo badanayeen. waxaan ku yidhi, Xamdi wadaad u gee si uu u quraan saaro. adigu waa ogtahay inaan wadaado badan u geynay, balse wax isbedel ah kamaanan arag. waxaa jira wadaad weyn oo ku nool tuulada deriskeena ah ee aan aadno u geyno gabadheena. waa hadal fiican. subaxnimada hore ayaana qaadi doonaa Xamdi iyo Raxma, halkaas ayaana geyn doonaa. subaxdii markii la gaaray ayaan u safrnay wadaadkii aabbahay sheegay. markii aan tagnay goobtii wadaadka waxaa banaanka fadhiyay haweeney badan. kadibna waxaan qaadanay ballan, kadibna waan fadhiisanay annagoo sugayna inaan u galno wadaadka. saacado badan kadib ugu dambeyn waxaan u galnay wadaadkii. hooyaday ayaana wadaadka u sheegtay wax walba oo dhacay. wadaadkii ayaana yidhaahday, keen gabadhaada, adinkuna banaanka aada oo ku suga ilaa aan idinka yeerana ma soo geli doontaan. maya, ma baxayo oo kama tegay gabadhayda, halkan ayaana fadhinayaa, wax buuq ahna ma sameynayo. kadibna wadaadkii hadal kale muusan oran, gacantiisa ayuuna saaray madaxii Xamdi. kadibna wuxuu bilaabay inuu ku aqriyo qur-aanka, codkiisana uu kor u qaado. aniguna waxaan arkayay jirka Xamdi oo si xoog leh u gariiraya. kadibna qaylo aad u sareysa ayaa kasoo yeertay Xamdi. aniguna waxaan arkay jirka wadaadkii oo isna si daran u gariiraya. si kadis ahna wadaadkii ayaa dhulka ugu dhacay. aniga iyo hooyaday waxaan u qaylinay si argagax leh. dabadeedna dadkii oo dhan ayaa qolkii soo galay. kalkaaliyihii wadaadka ayaa yidhaahday, inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. wadaadkii wuu geeriyooday. aniguna waan ka naxay wixii dhacay. hooyadayna waxaan ka caawiyey inay walaashii dibadda u saarto maadaama aysan socon karin. waxaana qaadanay gaari kira ah. gurigeennii ayaanu kusoo noqonay. maalintaas kadib waxaa la yaabneen wixii Xamdi ku dhacay. sanooyin badan kadib weli walaashii Xamdi waxay aragtaa waxyaabihii cabsicabsida ahaa. wiilal badan ayaana guur usoo bandhigtay iyada, balse sida caadada ahayd markii ay la kulantay wiilka soo doontay wuu ka carari jiray. wiil kasta go-aankiisa inuu guursado Xamdi wuu isbedeli jiray, wuxuuna isku bedeli jiray inuu naco, inkastoo Xamdi ay tahay gabar aad u qurux badan. maalin maalmaha ka mid ayay hooyadii qolka soo gashay iyadoo leh, Xamdi, hadda waxaad gaadhay bartamaha sodomeedyada, waana inaad guursataa. waxaa kusoo dalbaday nin leh caruur, maad aqbalaysaa oo diyaar ma u tahay inuu ku guursado? haa hooyo, diyaar ayaan u ahay inuu guursado. wax walba si degan ayay ku dhaceen. waxaana la sameeyey xafladii iyo meherkii. arooska Xamdina wuxuu ahaa mid si weyn loo soo qabanqaabiyey, waxaana lagu dhigay hool weyn
ugu dambeyn walaashay way guursatay waxayna aaday gurigii ninkeeda. Dhowr saacadood kadib markii aan gurigeennii kusoo noqonay ayaa taleefanka aabahay soo dhacay, waxaana soo wacay ninkii qabay Xamdi isagoo leh fadlan adeer kaale guriga iigu imow oo iga kaxiso gabadhaada, maxaa jira wiilkaygiiyo Xamdise maxaa ku dhacay? Kadibna aabahay ayaana soo eegay isagoo leh wuu igu damiyey taleefanka ina keena aan aadno xaafadda Xamdi. Kadibna waxaan u dhaqaaqnay dhankii Xamdi annagoo Ilaahay uga baryayna inuu Ilaahay ka dhigo Xamdi mid caafimaad qabta. Markii aan gurigeena imaanay waxaan aragnay qolkii jiifka oo burburay, Xamdina ay ku fadhido sariirta iyadoo ooynaysa oo qaylinaysa. Gabadhaydii maxaa kugu dhacay? Fadlan hooyo ma doonayo inaan halkan fadhiyo, waan murugsanahay, waxaan rabaa inaan gurigeena aadno ee ina keen. Fadlan Xamdi maxaa jira? Kani waa gurigaagii hadda, kana waa ninkaagii ku qabay, maxaad uga tegi? Waxaan arkay ninkayga oo gebi ahaanba gubtay, indhihiisuna aad ayay u guduudnaayeen, aniguna aad ayaan uga baqay, waxna ma sameyn, kaliya waan qayliyey. Kadibna Xamdi waxaan u qaadnay gurigeena, waxaana u keenay wadaad quraan ku akhriya. Markii quraanka lagu akhriyay Xamdi waxay tiri intaas baa igu filan, fadlan ma sii adkaysan karo. Markaas ayuu wadaadka quraanka ku akhrinayay Xamdi yiri waxaan u maleynayaa inuu qof uu sixray gabadhan oo uu rabo inuu gurigeeda burburo, taasi ayaana sababta ay u diidaysa inay joogto gurigeeda. Kadibna Xamdi waxay ku noqotay xaaladeedii hore waxayna aaday dhankii ninkeeda. Balse Xamdi had iyo jeer waxay arki jirtay hoos ka soo baxay musqusha kaasoo imaanaya horteeda marka ay jiifto sariirta korkeeda, waxayna aragtaa qof dheer oo madow horteedana ku dulduulaya. Maalin maalmaha ka mid ah Xamdi oo nala joogta guriga ayaa hooyaday tiri waxaan maqlay in wadaad cusub yimaaday magaalada, waxaana rabaa inaan kuu geeyo. Hooyo anigu ma garanayo waxa igu dhacaya, si kadis ah ayaana u waayay xakamaynta jirkeyga. Aan u tagno hooyo, sidaas daraadeed ayaana kuu leeyahay aan u tagno wadaadkaas. Waa hagaag gabadhaydii, laakiin goorma ayaan tagaynaa? Maanta kaliya u yeer wadaadka oo u sheeg inuu guriga uu ku casuuman yahay oo uu seexan doono caawa si aanan u raadin waqti dheer berri. Kadibna wadaadkii ayaan u tagnay. Wadaadkii ayaana wuxuu bilaabay inuu Xamdi ku akhriyo quraanka. Markasta uu akhriyo aayadaha ku saabsan jinniga, Xamdi qaylo joogto ah ayaa ka yeeraysay. Waxaan kugu amrayaa inaad ka baxdo gabadhan, iskagana tagdo si nabad ah. Markaas ayaa codkeedii isbedelay, wuxuuna isku bedelay cod cabsi ah. Hidaayo weliga ka bixi maayo gabadhan, iyadu waa hantidayda, waxaan kugu amrayaa inaad ka baxdo farteeda hadda. Laakiin codkii ayaa yidhi ma baxayo hadda ayaana dili doonaa. Wadaadkii wuxuu sii waday akhrinta quraanka isagoo codkiisa kor u qaaday. Markaas ayaa Xamdi jirkeeda si xoog leh u gariiray, dhulka ayayna ku dhacday, waxayna isku dayday inay dhagaha faraha gashato, balse codka wadaadka ayaa aad u dheeraa. Si kadis ah ayaana u aragnay uuro madow oo kasoo baxaysa farta Xamdi. Kadibna jirkeedii ayaa hoos u dhacay. Ma fiicnaan doontaa Sheikh gabadhaydu? Ilaahay idinkiisa way fiicnaan doontaa gabadhaadu, laakiin ii sheeg maxaa gabadhaada ku jiray? Sheikh sanadooyin badan ayay la dhibanayd waxyaabo aan caadi ahayn, waxaan u geynay wadaado badan balse waxba kamaysan qaban, xaaladeeduna way kasii daraysay. Gabadha waxaa ku jira jinni, jinnigaas wuxuu la macaamilay gabadhan, ugu dambeynna wuu guursaday markii ay jirtay 17 sano. Laakiin sidee Sheikh jinnigu ku galay gabadhayda? Xamdina way toostay, wejigeeduna aad buu u cadcadaaday. Maxaa dhacay hooyo? Waxaan u sheegnay wax walba oo dhacay. Wejigeedana waxaa ka muuqday naxdin iyo cabsi. Alxamdulillaah, haddii aan caafimaad qabo mar dambe muraayad horteeda ma istaagi doono.